meeshan waxaan joogaa waa Nairobi raashin maanta masha Allah la bixinaya bur iyo soor iyo baasto bariis iyo saliid ilaha qarasiyo international hope organization masha Allah aad masaakiinta Mandera County especially Mandera East sagaalka locationka shalan waxaan bixinay waxay bixiyeen 1500 oo qoys ay heleen saakena dheer adig waxay bixiyeen cash transfer oo 1000 oo qoys ah masha Allah bishan ramadaanka aad ba maaragtay kaalmeys fiican ba inoo keenan anaka Mandera County aad dadkan oo aan sala shaqeynayna masha Allah tabarakallah raashinka waxay caawinaysaa dadka masaakiinta dadka cuuriyamaha dadka waayeliinta dadkan maaragtay oo agoomihi marka si fiican oo marka dad masaakiinka kaararka la siiyay marka nin walbo kaarkiisa gacanta ku haysta nin kaar haysanin raashin lama siinayo laakiin sidaas oo masaakiinta oo sida ugu daran ba loo kala qaybiyay maanta Nairobi aan joogna marka si nidaamsan raashinka waa u jeedin masha Allah raashin ballaaran meel kasto gadaashi iyo dhankan dhan raashinka buuxa marka dadkan raashinka keenana ilaa qarasiyo dadka partner kale oo maaragtay sida international organization tafadhali sana idinkana maaragtay ina shaqada noocan oo ka qayb gasheen especially waqtigan oo abaarta jirto ilaahay naga bixiyo marka insha Allah shukran jazakallahu khairan governor kenana ma aad mahad u celinayna oo maaragtay dadkan oo noo soo raadiyay oo marka masha Allah tabarakallah caawinada meel walba u galaya anakana county ahaan mar dhow insha Allah raashinka soonkan waan bixin doona marka alxamdulillah shaqaan ku jirna marka wixii oo cash transfer noo socota tanada carabta imaanaya waa raashinka fiican ay keenan iyo wixii kale waa rajo fiican aan leenahay marka inta dabarteena insha Allah waa dadaal aad aan ku jirna jazakallahu khairan shukran assalamu alaykum anagoo ah hay'adda International Hope Organization oo kaashanayso hay'adda Charitable Aid for Peace and Development KAPDO waxaan soo gaarnay halkan magaalada Mandera anagoo ka jawaabayno codsigii ay soo jeediyeen dawladda county-ga iyo dawladda dhexeba ay u soo jeediyeen dadka gargaar wadayaasha ama samafalayaasha in ay soo gaaraan dadka abaaraha ay ku dhaceen magaalada Mandera iyo county-ga Mandera guud ahaan waxaan la soo gaarnay gargaar ah 2000 oo qoys oo aan siinay raashin kala duwan oo bur iyo bariis iyo baasto iyo sonkor iyo saliid baleh iyo dad kale ayagana 1000 ah oo aan la soo gaarnay gargaar ah cash aan la soo gaarnay marka hawshaas waxa aad nooga caawiyay county-ga Mandera oo si maaragtay hufnaan ah nagula shaqeeyay iyo xoog furnaan ah aad iyo aad ugu mahad celinaynaa county-ga Mandera waxaan rajaynaynaa insha Allah taala gargaarkan inuusan noqonin kii ugu dambeeyay oo aan insha Allah taala la soo gaarno gargaariye kala hadii Ilaahay ka raali noqdo waan aad ugu faraxsanahay inaan dadkeena caawino وهذا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد ومحمد نور حسن صلو chairman Charitable Aid for Peace and Development Organization KAPDO shalay waxaan ku bixinay magaalada Mandera raashin aan ku bixinay maantana waxaan joognaa subaxaan hadda tuulada Nairobi iyadana raashin ilaa 400 oo qoys yaan ku bixinay مساكين انت جوجتنا aad bay u farxeen insha Allah ta'ala waxa ilaahay ka rajeynayna wax kale imaadaan inaan sii wadi doono oo tuulooyin kale aan wax gaarsiin doono marka waxaan la joogo marti ka imaada qadar oo caawimaadkan soo bixisay caawimaadkana saad u arkaysan wuxuu ka kooban yahay bur iyo baasta iyo saliid iyo sokor iyo maaragta boosha intaasoo kulli wala xirxiran oo maaragta 25 kiilo iyo 12 kiilo marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay dad soo qaboojiyo insha Allah ta'ala wajazaakumullahu khayran